subax wanaagsan dhageystayaal waa sabti 5 bisha September qodobada barnaamijka saaka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah safaaradda Soomaalida ee magaalada Khartoum oo beeninaysa in gabdho dalkaas u dhashay oo doonayay inay ku biiraan khilaafada islaamiga lagu qabtay baasaboorro Soomaaliya waxaan xiriir la sameynay dawladdan Suudaan dhinacyada qotay arrimahaasi baaritaan kadib waxaan ogaanay inuu warkaasi waxba uusan ka jirin saxaafadda waddanka Suudaan ayaa bariyahan waxa ay hadal haysay gabdho waddankaas u dhashay oo iyagoo u socda inay ku biiraan kooxda khilaafada islaamiga lagu qabtay baasaboorro Soomaaliya oo ay ku safrayeen arrintaas waxa markaasi hadal ay ku beeninayaan ka soo saaray safaaradda Soomaalida ee magaalada Khartoum Fiidow Maxamuud Fiidow oo safaaradda u qaabilsan xagga saxaafadda ayaa arrimahaas iga warramay waxa magaalada Khartoum ee dalka Suudaan joornaalada ka soo baxa ay maalmihii la soo dhaafay aad u hadal hayeen afar gabdho arday ahay oo jaamacad ka dhigana dalka Suudaan oo arday Suudaaniyiin ahaayeen oo waliba rag mas'uuliyiin oo dawladda Suudaan ka tirsan ay dhaleen alla sheegay inay magaalada Khartoum ka tageen iyagoo ku sii wajahna dalkaasi Turkiga si ay Suuriya ugu sii gudbaan oo ay ugu biiraan ururka Daesh intaana gaarin oo ay transit ku sii hayeen shaariqa dalka Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in lagu soo qabtay kadibna lagu soo wargeliyay dawladda Suudaan kadibna sidii lagu soo wareegtay arrintaasi iyagoo ka hadlayay ayaa marka waxa dhacday farxow in qaar kamid ah warbaahinta ama joornaalada dalka Suudaan aadka lagu akhristo aadka waa afdheer inay ka soo qoreen oo ay ku sheegeen in gabdhahaasi inay ku baxeen baasaboorka Soomaaliga oo ay sidaas magacyadan u bedeshin kadibna ay adeegsadeen baasaboorka Soomaaliga maxaa marka ka jira warkaas sheegaya baasaboor Soomaaliya inay wateen markii aan maqlay arrinkaasi safiirka iyo diblomaasiyiinta safaaradda dhan isku imaaday bal arrinkaasi inaan baaritaan lagu sameeyo waxaan xiriir la sameynay dawladdan Suudaan dhinacyada qotay arrimahaasi baaritaan kadib waxaan ogaanay inuu warkaasi waxba uusan ka jirin waxay noo sheegtay dawladda Suudaan in uusan jirin baasaboor Soomaaliya dad ku baxay gabi ahaanba ha ahaadaano dad ajaaniba aysan jirin kadibna waxaanu sameynay in aanu joornaaladii warka soo qoray bal aan weydiinay laftirkooda halka ay warkaasi ka soo xigteen si ay cadeen noogu keenaan haddii warkaasi ay jiro hayaan si aan baasabooradaasi meelay ka baxeen u dabagalno waxay noo sheegeen in waxaasna ka maqleen uun baraha bulshada ay dadku isku wadaarsadaan kadibna aan ku qabsanay baasaboorkii in magaca Soomaaliya iyo baasaboorkii Soomaaliga aysan si fudud u ciyaarin oo dawladda Soomaaliya ay mar walba la socoto warbixinada noocaas oo kala kadibna ay warbixin safaaraddu soo saartay oo safiir ku seexan yahay oo uu sheegay in baasaboorka Soomaaliga uu sanayn marnaba baasaboor la fawzi kareeyo ama laga been abu karo oo yahay mid elektroniga oo muddo dhowr sano ah ilaa yaad soo aha arrimahaas aan ugu sheegnay kadibna waxaan ku amarnay ama aan ku wargelinay in ay raali gelin ka bixiyaan ereyada noocaas ay Soomaaliya u isticmaalayaan laakiin Fiidow dadka noocan ah adduunyada u kala goosha baasaboorro badan ayay isticmaalaan oo ku safraan baasaboor kaliya kuma koobna horena waxa uu jiray eedeymo ku saabsan baasaboorka Soomaaliga dad ajaaniba in lagu qabtay marka ma raadiseen bal in xitaa meel kale baasaboorka Soomaaliga laga bixiyay oo iyaga la siiyay oo inaan adinka bixin anaga naguma eedeyn baasaboorka Khartoum laga bixiyay laakiin baasaboor Soomaaliya ay leeyahay waxaan ka codsanay dawladda Suudaan in ay si rasmi ah ugu soo gudbiyaan koobiyo kamida baasaboorkaasi haddii habeerata haday jirto arrinkaasi aan u gudbino oo ogaano intaan Suudaan joognay warqad baasaboorka Soomaaliga looga baxayo aan safaaradda aan la ogeyn aysan ka warhaynin qofka Soomaaliga bixitaankiisa soo diritaankiisa aan safaaraddu ka warhaynin ma jiro marka wax walba oo xiriir dhow oo dawladda Suudaan ay aad ula shaqeyso arrimahaasi ayaanu ka kaashanay mana jirto qof arrimo noocaas oo kala ah ku lug leh oo xataa Suudaan xataa ka soo degay oo maamul Turkiga lagu aaday sidoo kale xiriir waxaan leenahay safaaradda Turkiga oo qof walba oo baasaboor noocaas ula tagaa baasaboor Soomaaliya nagala hubiyo xataa meel kale hadii ka soo baxeen hadiiba gabdhahan Turkiga aysan weli gaarin adinku ma u dhabbagasheen ka safaarad ahaan oo ma la xiriirteen bal safaaradda Imaaraadka oo kale ama qolooyinka la sheegay gabdhahaas inay ku qabteen magaalada Shaariqa baasaboorada waxaa jirto marka laboorka magaalada Khartoum laga baxayo waliba aad maalmahan dawladda Suudaan ay aad il u haysaa dawladnimada ama dadka rakaabka ay u socdo dalkaasi Turkiga inay si gaar ah loo baaro marka hadiiba aan Suudaan ka ogaan ma uu si dabagalin waa arrimo wadamo kale aan si ogaan sababtoo ah waxa haduu halkan ka jirin oo aan Suudaan uga bixin meel kale oo ka qaadan karaan ama baasaboorkaasi ku heli karaan ma caddo
fiidow maxamuud fiidow ayuu ahaa u qaybsanaha arrimaha safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Khartoum. qodobkaas dadka ra'yigooda ka dhiibtay Facebook nagula soo xiriirayna waxa kamid ah Maxamed Saalax oo jooga Xingalool. waxa uu leeyahay magacii Soomaali cid kasta waa ay adeegsatay inuu sharaf dhacana annaga sabab u ah. Ibrahim Faarax oo jooga Somaliland waxa uu leeyahay Soomaaliya xaq ayay u leedahay inay ka jawaabto wixii eedeyma ah ee loo soo jeediyay. dhageystayaal adinkana ra'yigiina waad ka soo dhiiban kartaan qodobada kale ee barnaamijka oo dhamaantoodna aad ka daalacan kartaan bogga BBC da laanta afka Soomaaliga ee bbcsomali.com.